waxaa aaladda X ee horey loo oran jiray Twitter hadallo kulkulul isku weydaarsaday gavanaha Mandera Maxamed Aadan Khaliif iyo senatarkii hore ee ismaamulka Mandera Bilow Kerow. Arrintan waxa ay bilaabatay sida qoraalada laga dheehan karo kadib markii Bilow Kerow uu cambaareen u jeediyey dowladda ismaamulka Mandera isagoo uu ku eedeeyay waxqabad xumo. Waxaa arrintaasi maalmo kadib ka hadlay qaar ka mid ah wakiil waaxeedyada ama MCA-yada Mandera kuwaasoo senatarkii hore ee Mandera Bilow Kerow ku eedeeyay in uu yahay shakhsi iska fadhiyo hodheelada Nairobi, ujeedadiisuna ay tahay in dowladda hoose uu kaliya u dhaleeceeyo. Waxaa taas ay horseeday in Kerow uu u jawaabo wakiil waaxeedyadaas uuna sheego in ay yihiin shakhsiyaad uu gavanaha adeegsanayo oo diidan in dowladdiisa lala xisaabtamo. Gavanaha Mandera Maxamed Aadan Khaliif ayaa ugu dambeyn arrintan ka hadlay isaga oo sheegay in uusan fursad ama waqti u haynin waxa uu ugu yeeray dalaalay siyaasadeed. Senatarkii hore ee Mandera waxa uu sheegay in hadalkaas uu keeni doono in la xisaabtanka dowladda hoose ee Mandera ee Maxamed Aadan Khaliif uu gavanaha ka yahay ay korodho, isagoona dhanka kale sheegay in gavanaha uu yahay mashruuc uu keensaday senatarka haatan ee Mandera Cali Ibrahim Roba oo sidoo kale ah gavanihii hore ee Mandera. Gavana Maxamed Aadan Khaliif waxa uu sheegay in uu soo dhaweynayo isla xisaabtan nooc walba ah, balse waxa uu iska fogeeyay in uu yahay mashruuc uu keensaday senator Cali Roba. Waxa uu dhanka kale ugu baaqay Bilow Kerow inuu isku diyaariyo in bannaanka uu keeno waxa uu ugu yeeray dhinaciisa madow, gaar ahaanna intii uu xiriirka kala duwan hayay. Ugu dambeyn Kerow ayaa ugu baaqay gavanaha in si la mid ah sida degdega ah ee isaga qoraaladiisa uu uga soo jawaabay uu wax uga qabto xaaladaha Mandera iyo tabashooyinka shacabka oo uu sheegay isagaba in uu ka mid yahay.